daawadayaal wacan wanaagsan meel kasta oo joogtaan haatan ku soo dhawaada qodob xiiso leh oo aan ku eegi doono kulanka xiisaha leh ee London Derby kaas oo dhex maray kooxaha Tottenham iyo Arsenal. Kooxda Tottenham iyo Arsenal ayaa isaga hor imaan doona maalinka Axadda ah kulan xiiso leh oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. Haddana laacibkii hore ee kooxda Arsenal Lucas Perez ayaa sheegay in gacanta sare ay yeelan doonto kooxda Arsenal inkastoo ay ka maqan yihiin labada khad dhexe ee haatan ugu fiican qaaradda Yurub ee Martin Odegaard iyo weliba Declan Rice. Odegaard ayaa dhaawac xooggan ka soo gaaray waajibaadka xulka halka Declan Rice isaga laftiisu uu kaarka cas qaatay kadib ciyaartii xiisaha lahayd ay la yeesheen Brighton tii ka tirsaneyd horyaalka dalka Ingiriiska. Sidaas darteed Lucas Perez ayaa aaminsan in haddana xidiga fiican ay haysato kooxda Arsenal isla markaana ay dhulka dhigi doonto 3 dhibcoodna ka qaadan doonto maalinka Axadda kooxda Tottenham taas oo ciyaarta lagu magac daray kulanka London Derby. Haddii ay guul gaadho ama haddii uu guul gaadho Mikel Arteta oo tababaraha kooxda Arsenal waxay noqon doontaa mid laba taabtaan ah maadaama dhaawacyo ay halakeeyeen kooxda Arsenal isla markaana ay ka maqan yihiin kuwa khadka dhexe ugu muhiimsan kooxdiisa ee Declan Rice iyo Martin Odegaard. Arrintan si weyn ayaa loo hadal hayaa inkastoo dadka qaar ay sheegayaan in Tottenham ay fursad u tahay in marka kan ay ka takhalusto kooxda isa soo cabaysay isla markaana xoogga weyn leh ee doonaysa inay la tartanto ama ay ku tartanto horyaalka dalka Ingiriiska. Laakiin daawadayaasha ama guud ahaan dadka falanqeeya kubadda cagta ayaa sheegay in kooxda Arsenal ay ka mid tahay kooxda ugu tuka weyn sanadka kan marka laga yimaado kooxda Man City oo iyadu awoodda sare leh horyaalka dalka Ingiriiska. Horyaalka dalka Ingiriiska sanadka kan waxaa loo saadaalinayaa labada ciyaaryahan ama labada kooxood ee Tottenham Arsenal iyo weliba kooxda Man City inkastoo ay soo gali doonaan